aragtaas waa musqulihii ama suuliyaashii iskuulku ay isticmaalayeen waa saddexdaasoo keliya ma kala lahaa dumar iyo rag waa sidii waa aflaayihiin albaabadu waa ka jajabeen dushu ma leh saqaf ma leh isticmaalkooda biyo ma leh intaasiba waa ka maqan tahay waxaanay u baahan yihiin in loo kala sooco qudhadoodu qayb kale oo suuliyaasha ama laatrinada loo sameeyo toiletka waxa kale oo meesha taala in la sameeyo barkadii barkadaasi waxa ay noqonaysaa waa mid muhiim ah biyaha ay caruurtu cabayso inay noqoto biyo fara badan oo ku filaan kara sanadka oo dhan haddii ay xitaa roobku di'i waayo mid ku filaado oo reserve ay u noqoto aan cid kale la cabin barkada qudhadeeda waxaynu doonaynaa inaynu ka dhisno meel iskuulka agtiisa ah barkadahan yaryara la dhisay ee jaajuurka la saarsaaraya waa barkado aan mug weyn lahayn waqti dheerna aan shaqayn karin hase yeeshee waxaa wacan barkad weyn oo dhulka laga qodo sida barkadaha caadiga ah ee magaalada lagu isticmaalo tuulooyinka meel loo cayimay loo sameeyo dabeetana loo sameeyo gacankeedii oo dheer biyuhu ay galaan dusha looga xidho oo loogu sameeyo jiingad halkaa albaabka loogu xidho si aan dadka kalena uga isticmaalin in case ay timaadaba xitaa roobku haddii uu ka seejiyo sanadkaa dadka magaalada qudhadoodu ay reserve u noqoto oo aan loogu ay ula cabbaan barkadaasina waa muhiim in loo sameeyo waana in la isku taxallujiyo السلام عليكم ماشان waxa weeye meesha ardayda cuntada lagu kariyo weeye wasla iskuulka Maxamed Ugaas weeye sadarkana waaragtaan dambaski weeye taas halka geedka hoostiisa cuntada lagu kariyaa kaas caruurtu yarna geedka hoostiisa fadhiistaan oo cuntada ku cun markay iskuulka ka soo baxaan iskuulkina waa bakan iskuulka soo baxaan bay toos ka nimaadaan maxamed ugaas weeye magaaladan sidaan horeba idinku soo sheegnay nimanka qaybta aad arkaysaan waxa weeyaan malcaamadii jiingadaasi ku jiraan jiingadana amooyi dee malaha reer baale weliba masaajidkii waa kaa ku dhinac dhegan waxaa ka wacnaan lahayd horta runtii iyada oo meel gooniya weliba looga dhiso meel malcaamada carruurtu ku jirta waa carruur aad u fara badan waa kaas waa meel kulul sophisticated ah ventilation fara badan ma leh bal hadda aynu eegno macallinkii iyo carruurtii السلام عليكم عليكم السلام أقع السلام عليكم يا سلام ما شاء الله وقتها وأرضيدي وأركتان عرورتي معلمك والسلابان انت أركتان إلا أياد دبد سيتي وتولي بها وكم غن سلابان عثمان قعنلو ومعلك وهي وأركتان استاجا ديرو هدادو مقعا عبد الفتاح شامع ايدي هكذا القرآن كي قال جيسك السدحات فريد فارسو أقول هذا يروستاج مقعا عبد الرحيم كيسي كيسة شامع قرآن هكذا كي قال جيسك كوان فريد واي ساقا مقعا يا سيدك كيف ليلى عبد الله محمود ليلى عبد الله محمود حسين وياها كانت كي قاعد قرانك جيسك كوان واي فريد فارسو استاقا داري
مقعة نورة أحمد جامعة دخل وايح تيس كيف قال تيس كوات فريد فريسو واركتان أرديدا ما شاء الله سوينا أحسن بروح برا أيام أنت عين لقينا ولي بدي وايهاي استاغ ورا دي قدر مقعة بشير عثمان محمد عبد الله شيس كيف قاعد هذا شيس كسنات فريد سيفي عم واي waxay ku fadhiistaan male saas inuu koo fadhiyaan cawaha yarar baa loo soo dhigay weliba saasaa lagu dilaa waad aragtaan waa meel aada u kulul runtii daaqado fara badan male ventilation male waktiguna waxa weeyaan waktigii maarj guga kusoo beegnaa imanka ilaahay unbaa og siday ku fadhiyaan iyo annakuba kuleyl hawadii markaa dhul ka baxsan magaalada hawo leh maqsin wanaagsan in loo dhisa ayaa ka wacan iyadoo weliba loo kala duwo ay tahay oo habboon tahay hablaha iyo inamada midba maqsin loo dhiso saasay ku qurux badan tahay islaamnimaduna ku jirta waad aragtaan masaajidkii magaalada waa masaajid yar runtii space wuu haystaa xaggaa iyo xagganba loogu soo kordhiyo xaggaa dambe iyo xaggan dhinacyadaba loogu soo kordhiyo populationka intaa laginada waa ku nooliyo masaajidku waa ku yari يدي for the future بوحي لو حسابتمي ما لا سماعات حتى لوجو يو امبليفاير يو سماعات لوجو ايدامو waxa haboon in loo sameeyo amplifier iyo samaacadihiisiiba iyo waliba kordhin la kordhiyo inta hadii aynu soo dhaafno ama ha noqoto school ama magaaladu ha noqoto waa magaalo weyn markoo soo weynaanaysa intaasoo de buildings ah hadii laga dhisana waxa bay u baahan tahay generator ka laftigiisa waxa inoo wacaan lahayd mar haddaynu wax qabanayno